dunida caalamku waxay ku hawlan tahay horumarinta dhalinyarada sidoo kale markaaynu dib u jaleecno wadamada horumaray oo inta badan ay dhalinyaradu u tahriibaan isla markaana ay u hanqaltaagaan tegistooda waxa ay guud ahaantoodba dhisaan shakhsiyadda bini'aadanka iyagoona shakhsiyadaasi la dhisayo u soo qaabeeya una soo raaca dariiqo ay ku tilmaameen motivation amaba dhiirigelin markaynu afkeena Soomaaliga ku macnayno waqti xaadirkan waxaad moodaa inuu jawigu isbedelay amaba siyaasadda Soomaaliyeed ay noqotay mid ka duwan kuwii hore sidoo kale waxaan meesha ka madhnayn dawladda Puntland oo dhawaanahan hore ugu talaabsanaysay horumaro dhinacyo fara badan taabanaya isla markaana wasaaradaha shaqada iyo shaqaalaha iyo waliba dhalinyarada iyo ciyaaruhu ay ahayd mid si dardar loo shaqaynaysay ayaa guud ahaan dhalinyaradii waxa ay gaabis ku sameeyeen in ay ka waantoobaan wax loogu yeero tahriib iyagoona xooga saaraya sidii ay gudaha dalka ugu mashquuli lahaayeen dulucda mawduuceena ama warbixintani aynu dhawaan soo shaacin doono ayaa waxay si gaar ah u khusaysaa dhalinyarada sportisku caafimaadiyan jirka ayuu ka qayb qaat waxaana uu inta badan ka dhisaa qofka bini'aadanka dhinaca garaad dhalinyarada haad ku sugan gudaha dalka gaar ahaan Puntland waxa ay guud ahaantoodba ka siman yihiin u halqan taagidayo sidii ay uga gaari lahaayeen hadafkooda muuqda dhinaca sportiska amaba ciyaaraha haddaba qaybo kamid ah dhalinyarada ku nool magaalada Boosaaso xarun ganacsiyeedka Puntland ayaa waxa ay ka faa'iideysteen soo badashada garoomada VIP-da ku yaala gudaha magaalada Boosaaso iyagoona jaanis u helay inay habeenadii xilliga dambe ay halkaasi isku arkaan iyadoo taa bedelkeeda ay ku mashquuli jireen waxyaabo xaq jir ku ah naftooda iyo waliba nafaha dadka kula nool gudaha magaalada Boosaaso su'aalaha warbixintani ay taabanayso ayaa waxay yihiin maxay wasaaradaha dhalinyarada iyo waliba ciyaaruhu ay ugu talagaleen dhinaca dhalinyarada dadaalkaas ka muuqdo arrimahaasi oo dhowr ah ayay mushkil